السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وآها بين السوق ليس خميس وبشي رمضان طبعا كده إحنا كجرنا ومغفرة دي وي إلهي أمبرنا إنه إلهي نودن بدافع إنك يا والدين تاني يوحي مسلمين روا بسم الله الرحمن الرحيم انتهك بعدي waxaan bal halka ka sii wadaynaa imtixaanaheennii aynu kaga hadlaynay awdal iyo xaaladaha ka taagan dhaqankeega iyo guud ahaanba xaaladaha ka taagan maanta dhulkeenaas markaa hilmaan hadal kuma jiray xalay waxaan idhi magaalada boorama waxaa ku nool ugu yaraan 5,000 oo qof ujeedadeedu ma ahayn 5,000 oo qofe ama 50,000 oo qofe waxaa ku nool magaalada boorama oon ujeedadeedu ahayd nus milyuun 500 oo kun oo qof baa ku nool waxaa kale oo jira xaafado aanan xalay sheegin magacdooda sida xaafadda Sheekh Cali Jawhar iyo xaafadda Siberia oo iyadu buurta Sheekh Cali ka xigta xagga dooxada loo yaqaano Qorgab intaa waxaa soo raacay walee xalay warkii aan sheegnay een lahayn bidaartiibaa hablihiibaa nacay war baa bedelay caawa waad arkaysaan uma xidhni koofiyad ujeeddaduna ay tahay bishaaro la sheegay bishaaradaasoo marna naxdin leh marna farxad leh qoraal ka soo baxay BBC-da baa wuxuu sheegayaa in dadka bidaarta leh ama ragga bidaarta leh maskaxdooda ay ku jiro dahab ku jiro taasi markaa laba arrimoodba way raggii bidaarta lahaa way ku keentay waa mar waxay ku keentay farxado dee waa dahab socda ayay isku arkeen waa mar labaadka khatar bay isku arkeenoo dee waxa weeye waa la ugaadhsanaya waxaana la sheegaya iminka Mozambique inay ka dhacday xaalado dhowr ah oo rag lagu ugaadhsaday oo maskaxdooda laga soo saaray lana sheegay in lagala soo baxay dahab marka warba nimankii bidaarta lahaayo war xaaladeennu ma sokaysee war bal ha la is ilaaliyo khatar baad ku sugan tihiin marka waxaa baan odhan lahaaba war nimo yaho bal ha laynoo raadiyo electronics koofiyad electronic oo madaxa qarinaysa oo xataa haddii layna helo oo dee la damco in maskaxda laga jabiyo aan jabayn waxaan jabayn oo maskaxdan koofiyad ka dhigano taasaan u baahannahay marka bal raggii bidaarta lahayo islaaliya waxaa ka wareegayaa iminkana bal hadda xaaladaha boorama lagala kulmo markaan hargeysa soo mareeyay wuxuu igu yidhi hargeysa waxaan joogay gebigayga saacad baan joogay hotel samaroon nin samaroonihi leeyahay oo ku yaalla jigjiga yar baan ka soo quraacday halkii waxaan isku aragnay markaa ilaa 5-6 qof oo reer boorama ah hargeysana degan nin ka mida ayaa wuxuu igu yidhi warniyaho bal meelaha makhaayadaha markaad fadhiisato boorama waxaad arki doontaa buu igu yidhi haddaad suqaar dalbato ninka ku soo ag fadhiistee kuu yimaadana isna suqaar ii keeno kaasoo kale ii keenunbu isna odhani marka bal taana ogow horta taasi dee waa wax iska jiro nin saaxiibkaayo oo kula socda de inuu wax kula cuno ceebba maaha laakiin waxaa la yaabay anna taasoo kale weli keenta ayaa muxugta cajaayiga noqotay laakiin maxaa dhacay ninkii sidaa igu yidhi baan ku kulannay boorama Oslo ayaan ku kulannay goor habeena uu ka cashaynayey marka waan sheekaysanaynay shaah baan cabnay annagoo shaahi cabbayno markaa wuxuu dalbaday biitsu dalbaday anu markaa waxaan isiri waraa ninkan walaa wuxuu leeyahay isna kaasoo kale hala idhaahdo markaa markuu biisadii dalbaday baan intoo kacay baan idhi warniga ballan baan lahaayo anigu waa kaa tegayaa maca salaama nabadgeli sidii baan horta kaga tegey laakiin waa iska caama oo wax way dhaqanka Soomaalida ka mid tahay adoo meel wax ku cunaya ama shaah cabaya haddii lagu yimaado ama lagu arko inaad yacni jeeb dhaanto dee kolley waxaad qabtay in lagula qabaa wax ceeba ma aha waxaan se la kulmay wax cajiiba waxa weeye waar waxa la arki jiray shaxaad la isku shaxaado face to face adoo lagu hor fadhiyo uu qofku ku shaxaado laakiin lama arki jirin nin aydan isba arkayn oo kaa maqan oo ku yidhaahdo soo tuur macnaha shaxaadkii soo tuur $10 weeye jaadku soo tuur waa casriga
shaxaadka casriga ah ayay noqotay marka waxa nin ba Hargeysa iga soo wacay wuxuu igu yidhi warniyo ii soo dir $10 oo aan qaad siisto waxaan ku yidhi wardaniyo hamad ilaba joogtaaba markaasuu mee saadka telefoonka saadka igu soo dir waxaan ku yidhi war dawli aqoonta ma gaadhin be waxaan u baahanahay training ma horta u baahanahay bal horta dee ii kaadi marka waxa weeyaan waa shaxaadka casriga ah ee imika jira berigii dee dhallinyarada lahaa annagu inta badan waxaan tegi jirnay Jabuuti weliba waxaa naga sii fiicnaa ninka dee gabadh ay walaalayihiin Jabuuti ay ka shaqayso ayaa maasha Allah buu ahaa ragga uu ka qurux badnaa mar walba dhar waxa loo soo iibin jiray dee kala nuuca nin xarraga badan buu ahaa marka Jabuuti waa la wada tegi jiray dhallinyaradu inta badan way tegaysa xataa abti adeer cid doon wax ku lahaado Jabuuti markaan tegno wala na soo dhaweyn jiray oo lacagta dharka cunto wanaagsan maasha Allah dad fiican baa ahay way soo dhaweyn jireen markaan ka soo noqonaynana wayna soo sahayi jireen laakiin boorama marka la yimaado waxayd markaa timaadana inay dhallinyaradu ku shaxaado markaad baxaysana inay xaqa salaamaha kaa reebaan waa dhaqan weeye markaas uu iska jiraa weli ilaa haddana wuu jiraa marka waxaan u imanayaa imika arrin xasaasiya intii aan boorama joogay waxaan arkay ama aan la kulmay haween aad u fara badan haweenkaasoo ah hooyooyin intii aan magaalada joogay waxaa laga yaabaa maalin kasta inaan 2 ama 3 dumar ahoo ama khudrad iibinaya ama muus iibinaya kolley kaariyoolo tu riixayso aragto waxay doontaba ha ku iibinaysay baan wax weydiin jiray ugu yaraan 20 dumarkaa ka midii waxay ii sheegeen in ay kaariyoonaha ama mijinta jaadka ama khudradda ay iibinayso ama muuska ay dul fadhido ama xawaashka ay iibinayso inay jaamacadda kaga soo saartay ugu yaraan mid qaar baa 3 kaga soo saaray qaar baa 4 kaga soo saaray taasi waxa weeyaan hambalyo ay haweenku mutaysteen weeyaan yacni waxa weeyaan shaqo waxay qabteen shaqadii aabuhu qaban jiray way qabteen marka inamada iyo hablaha da'doodu ka hooseyso 30 jir la barbaaray burburkii dowladnimadeennii waxa weeyaan waxa soo koriyey waxa weeyaan hooyooyin baa soo koriyey marka hooyooyinka ha u mahadnaqaan ninkii shaqo haysta hooyadii hana siiyo ka ducaysto waayo horena waxaa loo yidhi xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aljannatu min aqdaami ummahaatikum marka yani jannadu waxay taallaa hooyada lugaheeda marka waxaan ku dardaarayaa dhallinyarada inay waalidkooda xasuusnaadaan aabba iyo hooyaba ayna mataqaanaa abaalkooda gudaan khaasatan hooyooyinkaasi maanta qaldawalaha dhismaha yacni shaqo kasta oo ayna weligood geli lahayn yacni galay ee ay duruufta ku kaliftay waxay istaahilaan wax kasta istaahilaan marka waalidiinta inamada iyo gabdhahow waa waalidkiina ogaada waxaan u dirayaa tacsi oon leehay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo hooyo maalindhowdan miidiyaha ka arkayey oo ku dhimatay magaalada boorama oo 11 carruur iyo aabahood ku soo korisay qaldada iyo wastaadnimo ay ka shaqaynaysay waad ogtihiinoo yacni 30 sano ka hor lama arki jirin hooyo boorama joogta oo qaldawala ah lama arki jirin yacni waxaan la arki jirin bay ahayd hooyo boorama joogta oo kabaryeeriya ama ka shaqaysa makhaayado shaaha dhigta ma jirin marka waxa weyn hooyooyinku waxa geliyey duruufta adag baa gelisay dantaa ku khasabtay marka hooyooyinkeenna ilaahay ha u naxariisto fi aakhiraba waar ha laga ducaysto waa bil rabadaan waa ducada hooyadu waa muhiim weey marka insha Allah ilaahayna wuu ku dambi dhaafaa hadda hooyada ku ducayso waxa weeyaan wax ninkii dhabarka ku geeyay xashka baa waxa la yidhi weli ma aad gaadhin yani inaad waajibkeedii gudato marka hooyooyinka laga ducaysto rabadaan khayr qaba Allah inooga dhigo ilaahay naga aqbalo soonkeenna sida ay caawa nabadgelyo waan isku iman doonaa insha Allah barito assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh